taliyaha qaybta 12aad xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil kale uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalo xeebeedka Hobyo kuwaas oo ka jawaabaya cabashooyin bilihii la soo dhaafay ka soo yeerayay maamulka degmada xeebeedka Hobyo oo ku aadan dadku hawlan dhismaha dhulka ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaaladaasi. gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale ayaa ku amaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska sida ay uga jawaabeen cabashooyinka ku aadan dhulka dawladda. waxaana soo booqday oo noo yimid taliyaha 12aad iyo maaragtay taliye sheekay taliye qooje saraakiil sarsara ah oo ka tirsan Galmudug ayaa waxay yimaadeen degmada Hobyo ayagoo runtii dhulal badan oo sharci darro ah ama maaragtay dawladda ay leedahay ay u yimaadeen inay maaragtay kontrolaan muddo dheerna runtii dacwadaas aan ka geynay dadkan aan ugu dignay inaysan dhisan dhulka dawladda ay leedahay dhamaantiis meel walba maaragtay dawladda leedahay in lagala soo xiriiro maaragtay maamulka degmada oo sharci darro ay tahay in la dhisto iyadoo dukumeenti cad aysan haysan dadka taas oo runtii degmada Hobyo xoogaa u keentay nabaro iyo iska qabsi ay ciidamada maanta soo gaareen degmada Hobyo si ay wax uga ogaadaan waxyaalaha jiro. taliyaha ciidanka 12aad xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje ayaa tilmaamay in mamnuuc tahay in la dhisto dhulka dawladda ee ku yaala Hobyo. waxaan rabaa halkan aan ka cadeyno ka sheegno dawladdu dhulkii ay lahayd ee lagu shaqeyn jiray hay'ad walba hal ahaato cid dhisata mamnuuc bay ka tahay in la dhisto in la gato iyo in la degaantaba. waxa gaar ahaan rabnaa inaan si tilmaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka Mariniska qaybtiisa Mariniska dhulka u lahaa hadda aan taaganahay waxaan u nimid halkan noo sheegay in dad shacabi ay rabaan inay goostaan ama ay dib u geystaan ma dhacayso mana yeeli karno in dhulkan ciidanku leeyahay la rabo in lagu shaqeeyo. Maxamuud Maxamed Cawaale gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo iyo sidoo kale taliyaha 12aad Qooje ayaa si wada jir degmada uga soo saaray dhulka dawladda. annaguna waxaan ugu nimid inaan cadeyno inaan dhulkan cidna gadan karin cidna yeelan karin. waxaan ka mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka degmada oo shaqadan si qabtay intii halkan ay joogeen. waxaan rabaa maamulka iyo ganacsatada iyo intuba inay ku baraarugaan in la ilaaliyo dhulka ganacsataduna ay ku xadgudbin xoolahoodana ay si gelin. dadka waxaan ugu digaynaa shacabka ama ganacsatada inaysan ku suroobin dhulalka ay dawladda leedahay ayagoo kala tashanaya inay u yimaadaan odayaasha dhaqanka ama maamulka degmada si u xeeraamiyaan ama u ogaadaan dhulkan inuu dukumeentigiisa sax yahay ama maaragtay dhulkan dhul oo maaragtay private ah u yahay. Baasha Alxaashi warbaahinta qaranka Soomaaliya Hobyo.